maamuladii soo maray xorriyadda ka hor magaalada Dhuusamareeb runtii magaalo kastaba waxay leedahay waxa la yiraahdo prehistory taariikhda maanta ka bilaabanaysa taariikh dheer ay leedahay magaaladan maamul ahaan markii ugu horeysay dadka sida la qiyaasayo maamulkii saldanadii ajuuraan ayaa ahaa saldanadii ugu horeysay dhulkaas ka bilaabato maxaa yeelay Dhuusamareeb banaankeeda hadda tagtay ceelasha Dhuusamareeb ku yaalay banaanka magaalada dhammaantood dadku waxay ku leeyihiin waa ceelashii saldanadii ajuuraan waxay saldanad Soomaaliyeed oo ka talinaysay laga bilaabo magaalada Hobyo ee mudugta fog ilaa Kismaayo dhulkaas ay ka tali jirtay marka boqortooyadaas ayaa ahayd meeshii ugu horeysay ee Dhuusamareeb laga xukumo xilligaasi waxaa laga xukumi jiray magaalo la yiraahdo Hobyo ayaa laga xukumi jiray xilligii dambe oo saldanadii Hiraab markii meeshii boqortooyadii ajuuraan laga saaray Hiraab maamulkii Hiraab ayaa yimid iyadana waxa laga xukumi jiray magaalada Hobyo kadib wax Talyaaniga ayaa yimid 1925 magaaladan Dhuusamareeb xilligaas waxa laga xukumi jiray Ceelbuur oo ex mudug loo yaqaan dadka qaarkood xilligaas ayaa laga xukumi jiray kadibna markuu Talyaaniga baxay dawladnimo la helay wixii ka dambeeyay dawladnimo Soomaaliyeed ayaa ka talinayay ilaa maamulka Galmudug marka maamulo kala duwan ayaa magaalada soo maray okay waa gartay